waxaan kaloo u mahad celinaa dhalinyarada LYD oo xafladan sharafta leh galabta meeshaan ku maamuusatay oo aan dareemayo inay tahay sanad guuradii labaad waa wax aad iyo aad loogu farxo run ahaantii anigu waxaan ka mid ahay dadka galabta ay u leedahay ahmiyadda goonida sida goonidan ugu faraxsan dhalinyaradan ururkan dhisan oo ka soo jeeda deegaankii dadka aad iyo aad ugu faraxsan ayaan ka mid ahay maxaa yeelay maxaan ugu faraxsanahay markii la rabo meel in la qaado oo meel loo socdaalo waxay u baahan tahay meesha ay u socdaalayso inay wado leedahay haddayse wado aysan lahayn ma kuu suurtagelayso meeshaas hadafkii aa ka lahayd inaa ka gaarto taas macnaheedu waxaan kala jeedaa deegaankanagii maadaama ay culaysyo badan iska jiraan dhibaatooyin badan iska jiraan ayna u baahan tahay waxyaalahaas ka jira in wax laga qabto maanta LYD waa meeshii loo mari lahaa ninkii dhaqaale ku taageeraya deegaankaas ama dhibaato jirta oo u baahan inuu wax ka bedelo maanta waxa aad iyo aad ugu fudud wadadii oo wax u marsii lahaay iyo meeshii uu kala soo xiriiri lahaay waliba waxaan dareensanahay inay website-yo ay leeyihiin oo adduunka wax walba oo dhan waxqabadkooda iyo hadafka ay u dhisan yihiin meel laga daawado ama laga akhristo waxa ay hadafka u dhisan yihiin inay leeyihiin ururkaana waan rajaynaa marka taas si gooniya ayay farxad ay iigu leedahay aad iyo aadaana ugu mahad celinaa dhalinyaradan maanta isxilqaantay oo labada sano oo dhisneed oo hadafkooda uu yahay deegaankaas maanta waxyaalaha badan ay iska jiraan oo dibdhaca faraha badan uu ka jiro qaabkii loo hormari lahay uu yahay aas-aaskooda uu yahay waa wax lagu farxo waxaa kaloo wax lagu farxo ah qaab dhismeedkooda uu yahay guddiyada lasoo magacaabay kuwa isbedelay ayaduna waa wax tusayso waa wadada tusayso horumarka tusayso maanta waxaa laga hadlaa guddi bedelay qaabkii lagu bedelay inuu waxaa meesha iiga muuqata inkastoona hadda fadhiyadii hore aan ka soo qayb gelin in qaabka hadda maanta guddiyadan loo dhisay qaab ka bedelan waagii hore la isku dooro jiray laakiin wax un horumar haddeetaan la gaaray sida walaalihii iga horreeyey iyo wiilasha adeerka u ahay oo iga horreeyey ay ka dhawaajiyeenna in qaabkan ka bedelan ay gaari doontaan insha allah haddii la yaraado rajayheena inkastoo aan islahay maxay soo bandhigi doonaan ururku labadii sano ay macnaha ay jireen waxa ay qabteen waxqabadkii laakiin waa soo socotaan rajaya insha allah haddii la yaraado taasna waa un laga sheekay doonaa laakiin maanta waxuu ahaay waxaan rajayaa kulankan kulan gooniya oo guddiyada isbedelay lagu iclaaminayo oo ururku isku baranayo guddiyadaas cusub inuu ahay ayaan rajayaa oo waxqabadkii soo bandhigidiisii inay ay mataqaanaa ay tahay mid dambaysa intaas kabacdi dhowr qodob baan rabaa inaan taataabto inkastoo waqtiguna iska cariiri yaho waqti salaad la joogo wax walba markii la dhiso hadaf loo dhiso ayay leeyihiin haddayse wuxuu hadaf aysan lahaynna inta ay soco karaan way iska yar yihiin bal waxaaba laga yaabaaba haddayse wuxuu hadaf lahayn oo structure aysan lahayn qaab dhismeed iyo markii hore intaana hawshaan la qaban qoraallo haddaana la samayn waxaa laga yaabaaba in la isku nacoba ayaa laga yaabaa marka wax walba oo la dhiso iyo urur walba oo la dhiso hadaf iyo aas-aas iyo tiirar ayuu leeyahay waxaan rajayaa marka LYD inay tiirarkaas leedahay inay qoralladaas leedahay inay leedahay xeerar u degan waa wax aan rajayayo kulley wax walba hadafka ay leeyihiinna waa in laga meel gaaraa marka waxaan leeyahay waa inii hambaliyaha aad iyo aad ayaan kugu hambaliyaha waxaa kale oo aan ku darsanahay hadafkiinu hal meel ha noqdo hal boonti ha noqdo deegaanka aan ka soo jeedno maanta baahiyo fara badan oo dhan walba ayaa ka jira ma la soo koobi karo waxa la dhihi karo 1 2 3 maaha marka adinkuna dhalinyaradii yaryar ayaa tihiin waxaa laga yaabaa ardadii wax baranaysa inaad tihiin ganacsatada intay ugu jirto ay aad iyo aad iskaga yar tahay akoonka waxa ku soo dhaca ay aad iyo aad u yar yihiin marka waan dareemi karnaa nin ardaya ama jaamacad ama iskuul dhiganaya qoondada uu ka soo jaray inta ay la ekaa karto waan dareemi karnaa inta ay akoonka lambarka ay ku siyaadi kartana waan dareemi karnaa
marka sidii marka waxaan soo jeedi lahay hal target inay yeelatiin mithaal oo kale waa tusaale maaha waxa ay tilmaamayo inaad dhahdeen annaka waxaan wax ka qabanaynaa waxbarashada inaad dhahdeen ama aad dhahdeen lambarkaas annagu aan wax ka qabanaynaa macnaha waxaan taas kala jeedaa haddii dhaqaaluhu oo dhaqaale weyn yahay meelo badan oo wax lagu kala bixbixiyo iyo baahiyaha badan oo jiro midba mar waa loo kala qaybi karaa laakiin dhaqaalihii haddii uu yar yahay maanta la yiraahdo baahidana jirtee intaan ha loo gooyo berri mid kale baahi kala timid intaan ha loo gooyo waxa laga yaabaaba inuusan wax weyn aan la taaban qarashkiina akoonka uu ka baxay wax macnaana uu soo siyaadin marka waxaan dhihi lahay hal lambar oo ka mira dhaladiin inaad samaysatiin midda labaad oo kale wax walba oo dhan waxay ku dhaqaaqaan oo u ah taayeer ay ku socdaan u ah waa dhaqaalaha markii la helo wax walba way fududaanayaan dhaqaalaha marka waxaa loo baahan yahay wadooyinka laga helayo oo lagu siyaadi karo oo akoonka waxay ku soo geli karaan in qaabkii loo heli lahay la siyaadiyo waxaa aad iyo aad aan u jeclaan lahay galabta oo kale marka meeshaan iskugu timaadiin dadka macquulgalka deegaankii ka soo jeeda maalqabeennadana in meeshaan lagu marti qaado oo la yiraahdo xataa haddaysa ahayn wax mar walba ay bixinayaan haddaysa ahayn in la yiraahdo war akoonkan maxaa noogu yabaahoday annagu waxaan nahnay dhalinyaro qaabkaas u dhisan deegaankaas ayaan ka soo jeednaa waad ogtihiin baahiyaha ka jira maanta urur gooniyo oo u taagan oo horumarina baahiyadiisa horumarinaya ma jirto marka waxaan kaaga baahannahay tabarucaad baan kaaga baahannahay marka waxaan rajeeyaa insha Allah haddii la yiraahdo nagasti meetingka dambe oo la qabto in dad macquul galaya dadka dhaqaalaha haysta oo magaalada degan in laga soo qayb geliyo si dhaqaale looga helo ayaan rajeeyaa insha Allah haddii la yiraahdo insha Allah aan ka soo qayb geli doonaa aniguna waxaan noqon doonaa xubinta ugu horeyda oo ururka la shaqeeya haddii la yiraahdo ama hiil dhan walba dhan kala istaagta ayaan noqon doonaa si gooniya aniga wuxuu kale oo farxad igu sii leeyahay run ahaantii waxaan ka mid ahay dad ayaantan deegaanka aad iyo aad qaabkiisa ay ku qanci waayay qaabka ay wax yihiin oo isku dayayo bal qaabkii wax looga bedeli lahaa marka maanta haddii dhalinyaradan ka soo jeeda Labaar aan arkay waxaan rajeynaa wixii aan shalay annagoo dad yar 2 qof iyo 3 qof iyo 4 qof waxaan ahayno culayska nagu ahay inaan maanta aan helno dad aan iska xijino aan dhahno war waxaan nooga baahan tihiinna waan ku garab istaagaynaa aduunkuna bal hawsha fuliya dad fulina oo hawshii fuliya in aan meeshaan ay galabta aan kula kulmana waa wax aad iyo aad aan ugu faraxsanahay run ahaantii hadda wax aan soo koobi karno maahan deegaanadanaga waxa ka jira intii 2 sano waxaan ku laalaabanayay deegaanadaas ayaan ku laalaabanayay kilinka hadda aan maamulka aan hoos tagno waxaan ka mid nahnay dadka aad iyo aad ugu hooseeya waxa dhacday hadda korteed waxaan ka baxay Addis Ababa ayaan gaari ka soo qaatay jigjigan ka soo baxay qabri intaas meelaha qaar hadda markaan ka soo baxayay Addis Ababa kala diyaaradu waa u soo raaci karay laakiin waxaan rabay maadaama deegaankii aan degano qayb aan ka nahnay inaan qiimeyn bal aan sameeyno waxyaalaha marka aan soo arko waxa kamid ahay dhagax buur maraan soo dhaafay qabri daarna aan soo gaarin aan tuulo yar oo isleeyahay ma 2 guri baa ka dhisan oo waliba oo cariish ahay aan waxaan arkay ilmo iskuul uga socda waxa ka dhisnaa 2 guri oo cariish wax saasa ka dhisnaa annaguna deegaankanaga ilaa waxaan u maleeyahay 13 qaabal markii centerka laga reebo 10 iyo waxbaan gaareynaa midaas aan soo arkan kurtanaga waa ka wada weynahay iska dhaaf bal qabalayaashii kale centerkiina hal cunug oo maanta oo iskuul ka aadaya ma jirto marka waa dibdhac aad iyo aad weyn cid maanta kale oo ay sugayso ma jirto adinka iyo inta ila midka ayay sugaysaa waxa loo baahan yahay wadadii maanta dadka Labaar indhaha loogu furi lahaay ina adinku aan noqotiin oo dadka u horseedin ayaan intaas ayaan xusana waxaan rabaa hal qodob oo kale inaan meesha uga faa'iideysto oo deegaankii ku saabsan taas waxay tahay dadka deegaanku dad reemiye ayay iska noqdeen culaado fara badan ayaa iska jira dhibaatooyinku way iska fara badan yihiin markay sidaan oo kale ay tahay waxa looga bixi karaa dadku dad islaama weeyaan islaamkuna wuxuu ku faraa in adiga gacantaadana laga nabad galo carabkaadana laga nabad galo marka waxaan dhihi lahay dadkaasu insha Allah haddii la yiraahdo way guuleysanayaan hadday noqdaan
dad gacantooda iyo carabkooda laga nabadgalo oo dadka deriskaas si wanaagsan kula dhaqma haddii ay noqdaan insha allah waxaan rajaynaa inay waxyaalo badan oo maanta culaysa oo haysta inay ka bixi doonaan taasna waa midda ay diintu ay noo sheegto nabi nuux markuu qoomkiisii la hadlayay dhibaatooyinka markay jireen muxuu yidhi faqul tastakfiruu rabbakum innahu kaana qafaara yursilu samaa calaykum mitraan ilaa aayadahaas waa wada taqaaniin dadku markii mataqaa ilaahay weynaa ay u laabtaan xasilooniyo ilaahay weynaa uu siinaa nabadgelyo ilaahay weynaa siinaa roob ilaahay weynaa siinaa meel walba ilaahay weynaa uu ka waraabinaa marka dadkaasna waxaan u baahan yihiin si gooniya xaggaas in aad iyo aad looga wacyigeliyo keliya maahan waxqabadka dhaqaalo la bixiye midda ugu weyn oo meesha ay u baahan tahay oon soo arka waxaa ka mid ah wacyigelin ayay u baahan tahay hadda haddii intuu roob samada uu ka yimaado adna hadday sanadkii mar tahay hadday dhowrkii biloodba mar ay tahay hadday bilooyin mar walba oo mataqaana ay suurto gasho inay taas ay muhiim tahay ayaan u arkaa waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu